hankaynu niyadaynu hayno iyo hanka aynu hayno iyo waxa aynu isleenay xaqiiqi baa yar marka horeba meel fog baanad kaba fakaraynin qofka bini'aadamkan hadduu hankiisu yariyo waxa maaha waxaan leenahay waxa iska weydaarsanay labadan shay baa u baahan inaynu fahmno inaynu han yeelano caali ilhimma inaad noqoto qofka caali ilhimma waxa lagu yaqaan inuu caziimo leeyahay inaan xamaas wixiisu ahay laba cashiya maalintaad xamaasadoto inaad dabeetana laba cashina iswereeriso hadhownaad xagga daba kitaabka tuurta maya inuu noqdo qof caziimo leh fa idaa cazamta fatawakkal cala allahi buu ilaahay markaad go'aansataan ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saarta qofka caali ilhimmiga waxa lagu yaqaanaa waxa hoose kuma qanco waa ku imaam ibn al-jawzi lahaa haddii buu yidhi nebinimada la odhan lahaa farsamaa lagu helayaa iyo barasho inaad wax nebinimo ka yar raadisaa waa kuu doqoniimo buu leeyahy yacni meel nin maray inaad adigu ka hoos martaa waa kuu doqoniimo waad mari kartaa weeyaan waxaynu u baahannahay caaliyulhimma waa qof raba shaqada uu qabanaya inuu xoog ku qabto yaa yaxya khudi alkitaaba biquwa baa ilaahay yidhi yaxyaw kitaabka xoog ku qaado awood isticmaal waxaa ilaahay subxaana wa tacaala inoo tilmaamaya waman araada alaakhirata wasacaa laha sacyaha wahuwa mu'min faulaa'ika kaana sacyuhum mashkuura ninka dadaala ee dantiisu aakhira tahay ilaahay subxaana wa tacaala waa uga mahad celiya waxay leenahay qofka caaliyilhimmaga ahi waa qof wakhtiga bakhayl ku ah waayo 12 minid haddii beyj qur'aana lagu qaybayo imise saacadood baa kaa luma maxaad 12 kan kaaga dhigay wax weyn waxay yidhaahdaan culamaa'i nafs insaanku bay yidhaahdaan atacwiid waxa la yidhahdo isticmaalaa wixii loo baahnaa markuu qaban kari waaye bay yidhahdeen meel kaluu isku mashquuliyaa si uu meel kale uga muuqan karo sheekada iyo maxaa la yidhi daynu isku mashquulinay dabeetana xaggaasaynu ka wada muuqan masalada meesha taalla waxa weeye waxay dhahaan caqliga bini'aadamka waa laba qaybood qayb waxaa la yidhaahdaa alcaqli alwaaci qaybna waxay ku sheegaan alcaqli albaatin aw illa shucuuri alcaqli alwaaci waxay ku tilmaamaan waa caqliga soo jeeda waa caqliga taxliiliya waxaan xawaastu ay aragto isha iyo dhegta iyo maqalka iyo dareenka iyo waxa kan ka warrama fakara wax sheega caqlina waxa la yidhaha waa caqli albaatinka caqli albaatinku waxay yidhaahdaan waa xajmi aad u weyn isagu caqli alwaaciguna waa wax yar bay yidhaahdaan laakiin waxaa yar baa hogaamiye bay yidhahdaan caqli alwaacigu markaa wuxuu u dhigmaa bay yidhahdaan waa naakhuudaha doonta wada doon weyn buu wadaa laakiin isagu waa naakhuuda yar caqli albaatinka waxa la geliyaa ma lumaan waxaad see u baahantahay inaad ka dhaadhiciso shaygu markuu caqlulbaatinka caqlulwaaciga ka sare waa kan fakere ee taliya ee warrama ee warka sheega laakiin intaad soo jeedana wuu soo jeedaa markaad hurdanaysna wuu seexdaa wuu maqan yihi caqli albaatinku isagu ma seexdo habeen iyo maalinba wuu soo jeedaa wixii loo dhibana waa ilaaliyaa caqli albaatinka waxa wax loogu dhiibaa ku celcelin iyo ka dhaadhicin altasdiiq watakraar baa ugu badan bay yidhahdaan in la fahamsiiyo laga dhaadhiciyo laguna celceliyo isagu bay yidhahdeen wuxuu gacanta ku dhigo wuxuu ka dhigaa dabeeca iyo sajiya iyo caada iyo suluk buu bedela yacni dhaqan buu bedela maalan waxaa laguu sheegay xadiidu nabi calayhi salaatu wasalaam oo ah in midigta wax lagu cabo wax lagu cuno wax lagu qaato saxiixa maaha xadiidkaasaynu hayna maalinta koowaad ee xadiidka laguu sheegay sheekhu kitaabka dhigaya adag fadhiday waad fahamtay xadiidkii hadhow markaad maqaaxida tagtaan shaa dalbataan mad bidix iska yar qadoonkaas sheekhu yiri ka daayo midigta ku cab waad iska dhigto midigta ku qaado waan ilaaway baad tiri sheekh midigta iska cabti saddex afar shanta casho hore marna bidixda ku yara qabanaysaa marna midigto markaad dhexda marinayso maad xasuusanaysaa adagaysaa mastoonaysaa war shaydaan baa nala cabay midigtaad ku qaadanaysaa laakiin markaad muddo wado automatic bay isu bedeshaa koob baa la soo dhigayaa midigtu baad ku qaad weligaa bidixda ku qaban maysid waad ka barata waayo waxay yidhahdaan caqli albaatinka ay degtay uma baahnid inaad fakirto tiraahdo ma bidixdan ku qaadaa ma midigtan ku fikrad lagaama rabo
lagama raba inaad tiraahdo bidixdiiyo midigta teebaa go'aanku qaadanayaaye waad iska fiiqaysaa qoladan waxbaadha waxay yidhahdeen maalan askarta askari haddaad doonaysa bay yidhahdaan inaad garato waa la joojiyaa dhaqaaqa dheh bidixbuu ka dhaqaaqaya waayo iyadaa lagu tireengareeyey askarigu markuu istaago bidixdaabaa dee socodku ka bilaabi jiray haddii aad askari taagto oo isiraha socod bilow bidixduunbuu dhaqaajinaya halka qof kale laga yaaba mar inuu midigta qaado mar bidix kolba tii u fududaata inuu qaado idan caqli lbaatinku bay yidhahdeen waa waxa loo dhiibo waxa loo dhiibaana in lagu celceliyaa unbay ku xidhantay faatixada miyaa gaftaan faatixada goor baad akhridaa adigoo aan soo jeedin baad akhridaa salaadaad xirtaa allahu akbar sidaad u wadwaday unbaa maskaxdu iska tagtaa faatixada wala daalin dumaad miirowdaa soo ma jirto yaa akhrinaya ilaa adigu waad maqnayde yacni caqli lwaaci baa maqnaa caqligii soo jeeday ayaa maqnaa laakiin caqli lbaatin baad u dhiibtay mar haddaad caqlu lbaatinka u dhiibtay ma dayacanto waa iska wadaya isagu wala daalli intaad ku miirowday uun markuu marinayay waxa la mid ah xifdigu markaa marna waa xifdi iska sariic oo intan yara saruun intaad dulka xaadisay caqli lwaacigaa haya oo safxadaad ka fakeraysaa oo aayadda ku xigtaad baadi doonaysaa oo kelmadaad eegaysaa oo maskaxdu waxbay xisaabinaysaa intaa weli caqli lwaacigii baa xifdigaagu ku jira laakiin haddaad daafiso ka kale u dhiibto uma baahna inaad ka fakertee sidaa faatixada loo akhriyo ayaad u akhrinaysaa idan waxaan leenahay waxaynu u baahannahay inaan wakhtigeenna ka faa'iidayno oo isku dayno inaad wakhtiga ka faa'iidaysato aad noqoto qof wax qaban karaya waxaad kaloo u baahan tahay imaam xasan albasri baa wuxuu lahaa war nafta buu yidhi haddaanad xaqa ku mashquulin baatilkee kugu mashquulinaysaa nolosha ma jiro wakhti firaaqa la yihi iminka bishan horta waan shaqaynaya bishaad shaqaynaysana qayb waayo noloshu wakhti firaaqaaba ma leh mar kasta hawl nooca unbaa ku haysataa saa daraaddeed buu wuxuu leeyahay imaam xasan albasri war naftan haddaanad iyada xaqa ku mashquulin buu leeyahay iyadaa baatilka kugu mashquulinaysaa adigu shuqulba waayi maysid mar haddaanad shuqul waayin adigu shuqulka xadee shuqulka aad rabto inaad qabato ha noqdo mid adiga kaa soo fulo ahmiyad kuu kala leh oo priorities kuu kala fog waxaad kaloo u baahantahay albii'a almusabita inaad ka tagto dadkan dadka cajsi geliyey waxba lama qaban karo waxba nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaa tafaa'ulku waa maxay waa inuu qofku khayrka had iyo goor sheego wanaagga in waxa la qaban karo culamaa'i nafsi waxay yidhaahdaan الرسائل الإيجابية والرسائل السلبية وحلا يدهدان شيئا waxay yidhaahdaan risaalaadka iijaabiga positive-ka wanaagsan iyo wargeysyada ama dhambaallada negative-ka ama maalan bay yidhaahdaan ilmaha yare qur-aanka aad u dhigaysa haddaad tidhahda habi iyo waxba garan maysid ximaar weeyaan kani eraygaasi wuxuu ka dhigi karaa bay leeyihin ximaar culamaa'i nafsi waayo waxay leeyihin haddii lagu celceliyo caqlulbaatinku galaa bay yidhahdeen caqlulbaatinka waxa galaana hore uma soo noqdaan saa daraaddeed wuxuu ku qancayaa bay leeyihin inuu fashiliyey oo aanu waxba qaban karin waxa ka roon bay yidhaahdeen tafaa'ulka iyo kalimaatu tashjiica waad fiicanta inaad tidhaahdo inaad adigu yara samayso tidhaahdo maantaana tarkiisine si wanaagsan baad u qaybay waa ku aqaana hebel waad qaybi kartaa 5 minute halkaa u bax intaasaa ugu filan bay leeyihin inuu qaybo ولذلك حتى waxay yidhaahdaan markay culamaa kuwa psychology markay ka waramayaan wax hadaad rabto bay wax laga yaabaa nafteena inaan wali baran wax hadaad rabto bay nafteena ka dhaadhicay intaad cidla fadhiisato bay yidhaahdaan u sheeg adigu naftaada kor ugu dhawaaq bay yidhaahdaan ma arinta ka war waxay leedahay intaad cidla fadhiisato wax tiraa quraanka waan qaybi karaa waxay leeyihiin waa risaala loo dirayo bay leeyihiin caqliga aamusnaa حتى بيد هذان سيد النيجاتيف كاها واستعمال بيد وايا تضمبو قبطا بيد هذا مثلا نيجاتيف اكو استعمال يعني ما اودي كروينا ما هي فاشل هورن بيد فاشل كو قبنا يا بيد هذا واحد هذا ناجح بان وان غوليسن هذا بيد هذا واي واحد عقلك بني ادمكو haddii lagu yiraahdo mesela nimanka bay yiraahdeen faras madow ha ka fakari maskaxdaadu marka ugu horreysay faraska madow bay qabanaysaa bay yiraahdeen diimka ku yiraahdo faras madow ha ka fakari faraska madow bay maskaxdaadu markiiba u talaabaysaa laadii hore bay yiraahdaan waa negligible ma ku xisaabtanto sida daraadeed waxay culimadu yiraahdaan التفاؤل والكلمات الطيبة قفكو إنه استعماله وياه
nafta inaad u sheego noloshu sucuubaad bay leedahay waa daali kartaa mushkilad baa kaa hor iman kartaa waxaasi laakiin waxa loo baahan inaad ka dulboodo waxa loo baahan yahay taaqaadkii kugu kaydsanaa inaad dib u adeegsato waxa loo baahan yahay inaad isdhiibin nolosha isdhiibka ugu liita waxa loo baahan yahay markaa inaad tidhaahdo waan qaban karaa waan qaban karaa waan qaban karaa waa qaybi karaa waa qaybi karaa waa qaybi karaa sida awgeed nafta inaad adgu mashquulisaa baa loo baahan yahay waxay yidhahdaan bii'ada markaa qofka cagsi gelinaysa inaad ka guurtaaba ku fiicanta